askari siduu ahaan jiray taa iyadaa xisaabta lagu darsado hadalkayga anigu intaasaan ku soo koobayaa wasiiru dawlaha ayaan u hambaynayaa inta kalena bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa maalin weyn waxaa u malaynayaa hadalkiiba inuu iga lumo farxadda darteed laakiin sidii xubnaha guddiga ka mida iga horreeyey ay yidhaahdeen maanta waa maalin weyn waa maalin aynu aasaaska u dhigayno dib u soo celinta ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed waxay nasiib u yeelateen intiina halkan taagan iyo in badan oo ku soo biiri doontaa inaad noqotaan aasaaskii ugu horreeyey ee dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidan waan lahaan jirnay aniga maanta laba farxadood bay i tahay kismaayo waxay ugu dambeysay 1986 allaha u naxariiso markaa aabbahay oo askariya ayaa kismaayo joogay 88kiina uu ku dhintay qabrigiisuna halkan uu ku yaallaa aabbahay wuxuu ka yimid xariirad oo ah galbeedka soomaaliya ugu xiga anu waxaan ku dhashay ceergaabo waxaanu ku aasan yahay halkan askariga soomaaliyeed noocuu ahaan jiray sidaasuu ahaa waxaan rabnaa inaan soo celinno oo askariga halkan laga qoraa ama ku dhashay uu lowyacaddo oo u shishayso xuduuddeenna ah ka shaqayn karo sidii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ahaan jiray waxaynu u baahannahay in aynu iskugu hiilinno hiil innaga ayaa iskugu filan dadku waa dhaweeye iyo dhammeeye ciidamadan amisom ee noo jooga waa dhaweeyayaal cadowgii markuu xoogga lahaabay inaga burburiyeen laakiin dhammeeyayaal maaha dhammeeye ninkii dhulkale iska leh inaan iska dhammayno mushkiladaasna innaga ayaa nalaga rabaa waxaan ku faraxsanahay inaan maanta hortiinna aan taaganahay oo aasaaskii waa taariikh beritoolana dad kalaa noolaan doona maanta innagaa nool inaynu aayaheenna ka tashanno guddiga aan anugu madaxoodu ahay waxay tegi doonaan dalka soomaaliyeed oo dhan meel walba waxaana ka soo qorayaan ciidamo idinka la mid ah laakiin idinku waxaad nasiib u yeelateen inaad noqotaan kuwii ugu horreeyey ee loo qoro diyaarna u ah oo si voluntary u yimiday inaad ka qayb noqotaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sharaf weyn bay ii tahay inaan maanta hortiinna isa soo taago oo aan kelmado hortiinna ka idhaahdo waxaan jecelahay maanta dhan qorraxaad taaginaydeen waa isku dambaynaa waa inila joogaynaa waxa keliyeenna laga rabaa inaan inagu cadaalad isu samayno cadaalad reer ma keeno cadaalad waxaa keenta dawladnimo iyo nabad iyo dawladnimo ayaynu u baahannahay waxayna ku jirtaa dhexdeenna innagu aynu isku caqli celinno aynu isku hiilinno aayaheenna iyo dalkeenna iyo dadkeenna aan u talinno cid kale oo u talin kartaa ma jirto waxaan odhan lahaa wakhti badan baad cidlada taagneeday oo aadna sugayseen waxaan codsan lahaa beesha caalamka maanta waxaan si official ah ama si rasmi ah u bilownay dhismihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed marka in wixii taageero ah aad nagu taageertaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan sacabadaada biyo lagaga dhargaabaa layidhi cidna ayaananu isku hadlaynin aynu isku tashanno annaga waxaana laga yaqaanaa inaan keenno nambar saxa marka la yidhaahdo askarigii halkaa jooga waa kuma inaan odhno karno askarigii halkaa jooga waa intaa ururkaas nambarkaasuu leeyahay magacaasuu leeyahay hebel baa la yidhaahdaa intaa haddii aan helno waxaan u malaynaya haddaan isku shasanno ganacsatadeenna dadkeenna bannaanka joogaa way heli karaan waanay awoodaan xerooyinkii ay ku noolaan lahaayeen iyo wixii ay ku noolaan lahaayeen in ay noo huraan oo ay na siiyaan oo ay ku bixinayaan qabyaaladda u beddelaan mid qaran oo qaadhaan qaran loo beddelo tan nin walba deegaankiisii dadkiisa inuu colaad kaga huriyo uu u bixinaya wakhtigii colaaddu wuu dhammaaday waxaanu u taagannahay inaan nabad helno waxaanu u taagannahay inay sida dadka caalamku u nool yihiin u noolaanno waad mahadsantihiin maanta si muxuu ahaa rasmi ah waxaa u bilaabay dibudhiskii iyo diiwaangelintii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed
guddida aan madaxda u ahay ay mas'uulka ka tahay waa maasantiin waxaan maadaama oo maanta dhan xaalkeena aan sugnahay Soomaalidu aan isxaal og baa leeyahay xaalkiina iyo waxaad sidaad ku soo seen tabartiina og yihiin waxaan u soo dhiibay Axmed Caato laba neef oo geela oo inili yaqal hadii ilaahay raahdo waa maasantiin waa inila joognaa waa isku soo noqonaynaa waa tashanaynaa ma kala tagayno ilaa wax cad oo la taaban karo aan meel isla saarno waa maasantiin